محمد حكومة هاي جناح هاتن كشق يسوع جناح سير هلك كنت سنو حتى بالقشن محمد بالإيشك وحسامين أما دبعتنا يكون هاي قشن عبد الرشيد ووجد runtii qashinka dhibaatada uu nagu hayo waxaan ka cabanaynaa qashinkan la soo dhoobay hortaanada anaga ganacsi baan nahay ganacsiguna ninba meel buu joogtaa aniga meeshan baan hilibka yarka iyo kawaanka yarka aan ku leeyahay waxa hortayda yaalana waa cunta hortayda yaalana waa qashin waxaan gadanay cunto weeyo duruufta iyo danta marka inay qashinkii cuntadii si garab yaala yaa keentay marka cabashanaadnadu waxay ku saabsan tahay in laga qaado qashinka maxamed oo bal loo sheeg qashinkan waqtiga la soo dhigaya iyo xilliyada ay dhigayaan kamureysamiya cabdulshiid runtii qashinka waxaa la soo dhigaa xilligu ay lugta yar tahay sida habeenkii oo kale xilligu aan aad lugta u yartahay baa la soo dhigaa qashinkana magaalada dhexdeeda laga soo qaadaa meelo badan ama guri ah iyo maqaayadaha meelo badan baa laga soo qaadaa runtii waxaan cabasho ka nahay dadka qashinka u soo dhiiba nimanka joqoraha ee banaanka qashinka soo dhigaya inaysan dadka aysan u soo dhiibin oo qashinkooda ay meel ku ogaadaan runtii baabuur qashinka qaado oo lacag qasiyaba shiro anaga baan u dhiibno dadkaas in loo dhiibo qashinka lacagna lagu siiyo markii iyagoo lacagta ay bixinayaan ay yarta ka cararaya ayaa waxay sameeyeen oo u dhiibayaan niman joqoro oo lacag yar ka qaata ay u dhiibayaan iyagana waxay dhigayaan meelihii dadku u marayay iyo wadooyinkii bay qashinka dhigayaan sidaa darteed codsiga annagu iyo cabashada annagu waxay tahay dadka qashinka u soo dhiibaya iyo kuwa loo soo dhiibayaba arrintaa siyaasi iyo waxgarad oday iyo gabadh iyo wiil intaba in arrinta qashinkaas si xoog leh gacanta loogu dhigo waxna laga qabto aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مجاعي كبير مجاعي ومحمد علي magaalada waxaan aad dib ugu qabnaa qashanka guriga laga soo qaadaa haddana waxaa la keenaa gurihii meelihii adigu dadkii habeenkii ka hurdaayay dadkii cusba ama la qodaayay ama gurihii gaabka hortooda ayaa la iska soo dhoobaya marka waxaan ku talin lahayn dadka xil saaran meheedu xil saaran inay qashanka ururiso waa inay naga ururiso ama aysan qashankan aysan nagula dhibin ilaan waxay noqonaysaa hadhow qashankan haddii lagu arko guriga hortiisa yaala dawladdu waxay u qabtaa adigu inaad soo dhigtaa guriga laftirkiisa nadaafad darra awgeed ay u soo dhigaan marka taasna mas'uuliyad annaka aan leenahay ma ahan waa in ilgaara lagu fiiriyo dadka qashanka meelaha soo dhoobaayay ama haddii kale oo nambar khaas ah oo lala xiriiri karo haddii qashanka la soo dhigo qof soo qaban karo qofkii waa loo sameeyaa haddii qof inta qashanka wada arkaysaa haddii kuleetiga ay ku dhigtid garacadiina dhib kale kaaga soo baxay hadhow haddii laakiin qof si degdega kugu soo gurmin karo xitaa la helo way fiicnaan lahayd oo nambar khaasa la wici karo oo qashankii hadhow وحي طلاب شرعي كقاضي كلام بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي واحد إلى علي محمد مقايد دبي مسؤولين تدا أيام كجرا مركا واحد لبنا وهي قشن هل كانوا هو هبين والبلصات عادنا أيو مركي حلي قدام به هبين كيلو جوجو ولا كلا سيحضو وبعدين قشن كلا صوت عادنا أيو واحد صوت عادنا أنا كمان لقانو قشن كيرا وحويان بركو روب جو waxa weeyaan daawadkii way soo galeen roobkii ku daay marka qashinkooda waxa weeyaan aad buu soo uraya daqsiyo badan iyo waxyaalo badan baa ka dhashay hadda wadadii ma taqaanaa goobaha ganacsiga loo soo maray ama lagu kala gudbi lahaa lafteeda waa xadmayaan markuu roobku da'o sida awgeed qashimadaas in waxa u baahan yihiin meesha laga qaado haddii kale waxay sababi karaan in cudurro laga qaado iyo xanuuno laga qaado haddii goobaha ganacsiga ku wareegsan oo idina dhib ku qabaan marka qashinka iyada haddii meesha si degdeg wax uga qaado la waayo waxa weeyaan wuxuu sababi karaa xanuuno badan oo dadkii soo wajihi kara sida awgeed waxaan u baahannahay qolyaha dawladda ee arrinta iyada ku saabsan inay qashimadan iyada sidii meesha looga qaadi lahaa inay sababaan ugu yaraanna loo yeelo mataqaanaa nambar dad lagala soo xiriiri karo oo haddii la arko xilliga wax lagu soo daadinayo ruux arkaya haddii jiro nambarkaasna meelo badan lagu dejiyo oo si ruuxa la ruuxi markaas ka agdhowi oo nambarkaas ula xiriiri karo nambarkaasna in qashinkan aada si degdega in looga qaadana waa arrin muhiimadeeda leh baahi badanna loo qabo si oo mataqaanaa loo yareeyo waxyaalaha ka dhalan kara xanuunada oo ka dhalan kara iyo caqabada kale uu ku hayo goobaha ganacsiga iyo meelahan ku wareegsan hawl maalmeedka maalinkii dadka ay ugu jiraan
markuu roob doo biyaha ma taqaanaa ay daadadka soo rogmanaya meesha ay hore u dhaafi lahaayeen qashinkii baa celinaya biyihii marka ilaa iyo meelo dambe ayay joogsanayaan marka halka ka kala gudubkii magaalada waddada lagu kala gudbi lahaa ee halka goobaha ganacsiga loo soo mari lahaa waa caqabad iyadana meesha ku jirta marka waxaan aad iyo aad ugu baahanahay qashinkaasi si degdega looga qaado sidii kale oo lagu xakamayn lahaana marankeeda la yeesho oo ama number mataqaanaa lala soo xiriiri karo oo gurmad degdega soo fidin karaan loo siiyo magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Iftiin waxaan ahay dadka degan Eridan Forka qaasatan maqaaxidan Dubai Hotel waxaan halkan ka sheegayaa in uu qashinkan dib weyn ugu hayo qashina meeshan yeela aad iyo aad baan u dhibaataysanahay qashinkan si aan nagala qaadi lahaa farkada waa in la gala dawladda meeshan maalin kasta way martaa qashinkan mas'uuliyiin ana mar meeshan wadadan waa highway wadadan way xirantay dadkan meesha degan way ku rifaadsan yihiin qashinkan inay dib weyn ku hayaa maqaaxida dib weyn ku hayaa anaga dib weyn ugu hayaa wadada way xirantay mas'uuliyiin oo soo xilqaamo oo qashinkan qaadayna malahan qashinkana waan ku dhibaataysanahay taqsiim meel kasta taqsiya ordaya cudur badan ayaa jiro marka waxaan ka codsaynaa dawladda in qashinkan meesha ay naga qaado waa ku dhibaataysanahay qashinkan in la dhaafiyaan rabnaa waxaa nooga sii daran kuwa Nairobi Green la dhahay jira qashinka wadada way ka soo xaqaan meeshan ay ku daadiyaan Nairobi Green meeshan dib weyn ay ku hayaan qashinka iyaga soo qaada iyaga daadiya guriyaha ka qorteen qashinka guriyaha la soo qaadaan intay keenay ku daadiyaan marka waxaan ka codsaynaa dawladda inay qashinkan naga qaado qashinkan inay dhaafiso meeshan waa ku dhibaataysanahay taqsiga arkaysiin wasaqda oo ka soo baxay dadka ayuu fuulayaa cudurro badan ayaa jiri doona marka meesha hotel aan nooga yeela waa ku dhibaataysanahay fadlan waxaan ka codsaynaa qashinkan inaan naga qaadaan tunaomba sisi ni wakaaji wa Eastleigh North tunataka usaidizi manake chafu imemwagwa hapa kwetu 40th Street tunataka wale wahusika kuanzia forward hata Yusuf wakuje watusaidie kutoa hii tagataga pande hii ya 40th Street. Tunaomba wale wahusika wote wakanjoo, manake ukifungua kioski ndogo pale wanasema license ama wanakukujia kukushika. Tafadhalini tuondolee tagataga imejaa hapa, inaleta ugonjwa, watoto hawawezi fuka pale, watoto wako na shida, wanaenda shule wakishindwa watapitia wapi? Tafadhalini tuondolee hii. Asante sana.